waxaan arkaynaa shortcut keys fudud haddii xifdisid maaragta waxyaalo badan ku qaban kara. hadda intaa halkaan tegi lahayn oo aan qori lahayn new sheet aan halkaan kaga dar lahayn meeshaan hadday shiidad badan soo koraan geedkaan ilaa halkaas u tagaaya. marka haddaa shift iyo F11 isla qabtid waxa kuu samaysmaya sheet cusub. waxa waaye shift iyo F11 isla qabo maaragta sheet 3 hadda noo samaysmay. sheet 1 aan joognay, sheet 2 horaan u haysanay, sheet 3 gaan hadda taan haddana noogu daray. marka waa si fudud oo new sheet loo create karaa. control iyo A ilaa Z letters waa soo kafar garayna. hadda laakiin control iyo 0 waxay qarinaysaa column-ka oo dhan. these are called columns. fahante? marka column-kaan oo dhan haddii aan rabo inaan column C haddii aan rabo inaan qoriyo waxaan leeyahay control iyo 0 isla qabto. column Z waa qabso. xaqiiq waxaa ah intaan oo dhan haddaan rabo inaan qariyo ilaa K haddaan rabo inaan qariyo control Z aan isla taabto. fiiri ilaa K waa qariya. B aa joogtaa waxaa u booday L u booday. ma fahante? marka that's easy way oo loo qariyo column-ka oo dhan. control 5 waa strike ama xariiqin. hadda intaan oo kale intaan haddaan dhaho waa soo sheegay ama intaan hadda waa soo sharaxay. control iyo 5 aan taabtay intaas oo soo sharaxay waa strike. taas oo xariiqaya. control iyo semicolon-ka waa date, current date. hadda maanta taariikhdu waxay tahay. control iyo semicolon haddaa taabto marka wuxuu yidhi bishii 7 6deedii 2020. control shift iyo semicolon saddexdaas haddaa isla qabtana timeka hadda saacadda waxay tahay wuu ii sheegaya. control shift semicolon timeka hadda waa 12:57 PM. wajida control space barka asagana waxaa select garaysanaysaa the entire column. hadda column-kan inta saas dhihi lahayd ya haddii aan maaragtay intaan saas dhaho aan control space bar aan fiir marka uu ii select gareeya labadan column. individual haddaa artay mid keliyana waa control space bar maaragtay column-kaan oo dhan waa ii select garaysaya. control F3 new manager meeshaan waa aragteen magacyaha looga daraa. new manager haddaa rabta kana daarabna inaan hadda intaan hadda daarabna inaan magac u bixino. ma fahante? intaanaan rabnaa inaan magac u bixino. control F3 aan taabanayna waa noo soo baxay. new aan leenahay. magaca maxaa u bixinaysaan? waxaan leenahay keys aan u bixinaynaa. keys enter dheh. markaasaa close this box. marka hadda halkaan haddaan tagno fiiri marka keysaa jooga. keys waa meel kastaan tagno sheetka adoo jooga sheetka 100aad adoo jooga haddaa u baahatid keys inaad kusoo noqoto hal mar ku keenaya. ma fahante? waana soo sharaxnay name managerka sida maaragta loo manage garay sida wax loogu qorqoray. control iyo 9 waa rowga la dhil garaya kan. hadda haddaan rabna inaan qarino rowgaan oo dhan haddaan rabna inaan qarino row 9ka haddaan qarino intaan taabno control iyo 9 keliyaan taabano. intaa inta tegi lahayd saas dhihi lahayd select garan lahayd oo saas samayn lahayd control 9 aa qabanaysaa. hadda 7 aa joogtaa waxaa u booda row 9 maxaa qarsoon oo kaa maqan row 8 aa kaa maqan oo halkaa ku dhex jiro soo saar. hadda kaas ah control tilt waxaa waaye formula ku tusaysaa. hadda haddaan dhaho 36 macnaheed hadda haddaan dhaho equals 36 divided by 36 formulaas halkaas geliya. 36 divided by 36 waa 1. marka hadduu qofka la yaabo uu dhaho what is this one macnaheed wankane meesha yaalla muxuu u dhigan yahay hadduu qofka dhaho ya wankan usab formula barkaas waa kuu sheegaysaa in 36 divided by 36 wankan uu taagay. waxaa kaloo kuu sheegaya control iyo tilt. control tilt haddaan taabto maxaa dhacay? waa kana wuxuu leeyahay equals 36 maaragtay divided kan haddaan weyneeyo waa kaa 36 divided by 36 wankaas control tilt taabo waa noqonaysaa. marka wankaas ay aragtid formulaha markaa rabto inaad aragtid cellka ku jira control iyo tilt. control F6 waxaa waaye haddii new workbookyo badan ay ku furan. hadda haddaan furo mid kale control N haddaan taabto new workbook ay furmay. control F6 haddaan taabto waxaan kusoo noqday keygii hore shortcutkii
control F6 haddana haddaan taabto new workbookii aan furay oo book 1 ay ku qoran tahay halkaas haddaa fiirisid furmay control F6 dheh waxaan kusoo noqday marka waa buugag badan markay ku furan yihiin rabto inaa aadi intaasaan dhihi lahayd intaasaan intaa dhahdid haddana inta tagtid wajida intaasaan dhihi lahayd kan dooro inta tag aa dhihi lahayd control F6 haddaa isticmaashid si fudud maaragtay u helaysaa buuggii aragtay waxaa inoo ballan next clip